shirkani oo qaybaha bulshada Soomaaliyeed looga tashanayay arrimo la xiriira qorshe howleedka iyo sida looga gudbi karo marxaladda kala guurka ee dawladda Soomaaliya ayaa waxaa martigelisay dawladda iyadoo uu shirgudoominayay ambassador Mahiga ergeyga gaarka ah ee guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaana kulankaasi qaybtiisa hore goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka wakiilo ka socday maamul goboleedyada Puntland Galmudug Ahlus Sunna wal Jamaa wakiilo ka socday ururada midowga Afrika IGAD jaamacadda Carabta iyo xubno kale oo ka socday ururada u dhaqaaqa bulshada rayidka Soomaaliyeed wasiirka dastuurka arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Abukaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo saxaafadda la hadlay furitaanka kulankaasi kadib ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in shirkani loo qabto qaybaha bulshada Soomaaliyeed shirkan wuxuu ahaa inaan soo dhaweyno bulshada rayidka oo ku soo darno hawshan aan wadno roadmapka sidii loo dhameystiri lahaa kala guurka sanadkan dawladda aan meel gaar loo samayn lahaa August 2012 markii aan qabanay shirka ugu horeeyay oo wada tashiga September 4 ilaa 6 September la soo dhaafay bulshada rayidka waa laga tagay laguma soo darin shirkaas markii aan ka tagnayna warqad bay ka cabanayeen jawaabteedii sameeyay mid aan bulshada rayidka sababtiina ma laga maarmo xagga nabadda intii dawladdan ayna shaqeynayeen dastuurka arrimaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa intaasi ku daray in shirka looga hadlayo arrimaha dastuurka lagu qaban doono magaalada Garowe 9 ilaa 12 bisha December ee soo socota wakiilka gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Augustin Mahiga oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ka hor isafgaradkii roadmapka la sameeyay 15 isku day oo wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya hase ahaatee ay fashilmeen dhamaantood waxa uu dhinaca kale tilmaamay ambassadorku in qorshe howleedkan uu kaga duwan yahay isku dayadii ka horeeyay inuu yahay mid ay leeyihiin shacbiga Soomaaliyeed isla markaana lagu ansixiyay gudaha wadanka. Before the roadmap there were 15 attempts to reach peace in Somalia. ka hor qorshe howleedka waxaa jiray 15 isku day si loo gaaro nabadda Soomaaliya laakiin way guul dareysteen qorshe howleedka ayaa noqonaya dadaalkii 16aad si loo helo ugu dambeyntii nabadda Soomaaliya waxaan rajaynayaa iyadoo la raacayo roadmapka in la gaari doono horumar iyo nabadgelyo muxuu kaga duwan yahay qorshe howleedka 15kii isku day ee ka horeeyay isku daygani wuu ka duwan yahay maxaa yeelay waxa iska leh dadka Ambassador Mahiga ayaa dhinaca kale hoosta ka xariiqay inuu bilowday dib u habeynta baarlamaanka oo qayb ka ahaa qodobadii ku xusnaa qorshe howleedka la doonayo in muddo sanad ah ay ku hirgeliso dawladda Soomaaliya dhanka kale Cabdi Saciid Juxa wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Puntland ayaa ka hadlay aragtida uu maamulkiisa ka qabo ka qaybgalka shirkani isagoo dhinaca kale tilmaamay inay diyaar garowgii ballaarnaa ee ugu dambeeyay ugu jiraan martigelinta shirka wada tashiga ah ee looga hadlayo arrimaha ku saabsan dastuurka qorshaynta amniga qofkii booyba 10 ayaan ku soconaa oo ka kooban golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo bulshada rayidka aad baan ugu faraxsanahay shirkan oo daba socday hore oo ka dhacay hadda Muqdisho oo looga hadlayay dhamaystirka xilliga kala guurka shirkan maanta si wanaagsan ku bilowday doodo badan baa la soo jeediyay dhamaan cidda ay qosaysan meesha way ka hadleen doodihii kalena maanta way furmi doonaan waxaan rajaynaynaa heshiiska hore inuu gaaray bishii September magaalada Muqdisho halkan howlkan in isagana la isku raaco meelmarintiisii bulshada rayidka oo ka maqan ka soo biirtay in iyagana doodooda la dhageysto lagana tusado sidii loo meelmarin lahaa xilliga yar oo ka hadlay kala guurka qabaqabadii baa lagu jiraa Puntland diyaar u tahay shirkadana muddo ayaa la hadalhayay haddana wuxuu ku mudaysan yahay 9 ilaa 12 bisha ayuu ku mudaysan yahay qabaqabadeeduna waa hawl guud oo loo dhan yahay weeye anagoo dhinacayga diyaar baan sidoo kale wasiirka kalluumaysiga maamulka Galmudug Xasan Maxamed Samatar ayaa isagana cabiraya sida ay u taageersan yihiin shirka wada tashiga ah ee laga qayb galiyay qaybaha bulshada la shirka waa shir loo baahnaa waa wajiga labaad shirkii hore wada tashiga ahaa oo ururada bulshada laga reebay marka maanta annaga goobjoogayaal baan ka nahay shirka lagu furan yahay ururada bulshada waxaana laga hadlayaa qaabkii loogu xidhiidhin lahaa
habsocodkan hadda loo sameeyey Soomaaliya sida uga bixinayeen kumeelgaarnimada. Gadii kale ee ka hadashay kulanka ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen shirkani iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqaynta u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka. qaybihii dambe ee kulanka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay dood furan oo ay dadku su'aalo ku weydiinayeen madaxda xafiiska qaramada midoobay u kaabisa siyaasadda Soomaaliya ee UNBOS. sidoo kale wakiilka jaamacadda Carabta ee Soomaaliya Ambassador Maxamed Cabdulla Idris ayaa ugu baaqay madaxda urur goboleedyada IGAD iyo Midowga Afrika inay si degdeg ah wadamada hoos yimaada ay safaaradahooda uga furtaan gudaha magaalada tan Muqdisho si ay u caawiyaan dawladda ku meel gaarka Soomaaliya.